بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير عيد مبارك أخيارتا كحرا يوتيوب جنك مع العيسو ديسي كسو هذا برنامج كيني فيها دين إسلامك oo aan muddo badan hawada aan ku kala maqneen maanta ilaahay fadligiisa oo ah maalinta koobaad ee bisha shawaal oo ah isla maalinta koobaad ciidul fidriga ayaan waxaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno xerta masjidus saxaaba tari ee laba dhagax insha Allah taala xerta ayaan maanta su'aalo diini ah aan weydiin doonaa si mid ah ama halba insha Allah taala su'aalaheena ayaan gudagali doonaa su'aasha koowaad sheeg saxaabigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyiga uu qori jiray magaciisa ayaa la iska rabaa hadaba qofkii su'aashaas jawaabteeda hayo falyatafaddal marhaban ku soo dhawow mar kale youtube channelka macal ciise sudaysi iyo barnaamijka ifiyaha diinta islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdikariin Salaas Saciid su'aashaas jawaabteeda hadaan isku dayo waa Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu ما شاء الله walaalkaas su'aashii la weydiiyay oo u dhacaysay sheeg saxaabigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay qori jiray magaciisa hadaba jawaabta uu ka bixiyay waa mid sax ah iminka waxaad ku soo dhawaataan su'aasha labaad ee barnaamijkeena ifiyaha diin islaamka hadaba sheeg qofkii ugu horeeyay ama sheekii ugu horeeyay ee alifa cilmiga loo yaqaano usulul fiqh hadaba waxaan ugu fadhiyaa inay ka jawaabaan xerta masjidka saxaaba tari ee laba dhagax ee magaalada muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacayga ku bilaabaya waa cali maxamed cabdi joogta xerta masjidka saxaaba tari su'aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waa imaamuna shaafici rahimahullahu ta'ala ma sha Allah walaal qaali ah waad mahadsan tahay su'aasha sidii la rabay ayaad ugu jawaabtay waxaan soo gaarnay su'aashii saddexaad ee barnaamijkeena ifiyaha diinta islaamka oo maanta si khaas ah aan u weydiinaynay xerta masjidus saxaaba tari ee xaafadda laba dhagax ee magaalada caasimadda muqdisho halka barnaamijka ifiyaha diinta islaamka aad kala socotaan waa youtube channelka macal ciise daysi muuqaalka share gareeya like gareeya youtube channelka macal ciise daysi subscribe noo saara allah idin barakeeyo maanta waa maalin ciid ah waa maalinta koobaad ee ciidul fidriga waa 1 shawaal 1445 hijriya hadaba waxaad sheegtaan su'aasha soo socota oo ah su'aashii saddexaad ee barnaamijka ifiyaha diinta islaamka tolow yaa nasiib u yeelo doono waxaan hordhigi doonaa mar kale xerta masjidus saxaaba tari ee laba dhagax ee magaalada muqdisho su'aasha saddexaad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg kitaabka loo yaqaano al-muwadda imis sano ayaa la qoraayay hadaba sheeg inta sano oo la qoraayay oo imaam Maalik uu qoraayay kitaabkiisa muwadda waxaan filayaa inaad su'aasha jawaabteeda fahanteen isla markaasna qofkii ka jawaabi lahayna aad haysaan ugu horeyntii ku bilaaw magacaaga saddexan kadibna su'aasha jawaabteeda gudagal bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga waa magacayga Cabdicasiis Saciid Barqadle kana mid ah xerta joogta masjidus saxaaba 3 su'aashaas jawaabteeda hadaan isku dayo waxaa la qorayay kitaabka muwadda imaam Maalik 40 sano waxaan qoray al-imaam Maalik rahimahullahu ta'ala rahmatul abraar ma sha Allah mabruuk su'aashii la weydiiyay walaalkaas si sax ayuu u jawaabay